tahay marka waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan isdul taago mowduuca labaad oo ah ruuxa muuminka saddexda xaaladood markuu ku jiro xaalad kasta waxba waajib baan niri on ka sheekaynay xaaladda ugu dambaysa zamankan aan noolnahay waxaa jira xanuuno baahay baa jira tusaale ahaan corona caalamka ka jira xanuun baahay oo caalamkii kala xirxiray oo hadda waxa ma aragtay maantada waxa la leeyahay waxa u dhimatay ilaa 5 milyan ilaa 6 milyan oo ruux oo bini aadana ayuu xanuunka eedsaday oo u dhintay waxa way dad badan oo kamidana way ku dareema beeleen way ma aragtay dhibaato ayaa ka soo gaartay qaar dhaqaale ku waayay qaar ubadkoodii ku waayay qaar noloshoodii iyo mastarkii risqiga ku waayay baa jira xanuunada iyo ibtilooyinka zamankan jira iyo fitantan jira nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu u dardaarmay dhowr arrimood ayuu nabiga calayhi salaatu wassalaam u dardaarmay arrimahaas waxaa kamida ruuxa muuminka ah arrimahaas waxaa kamida oo soo hoosgalaya midda koowaad waxa weeyaan at-tawxiid ruuxa muuminka markay musiibo iyo ibtilo iyo xanuuno markii ruuxa muuminka xaalad saas oo kale taa uu galo waxa laga doonayaa inuu ruuxa muuminka ah kula tacaalo arrimahan soo socda midda koowaad waxa weeyaan at-tawxiid inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaliyeelo cibaadadiisa waxa weeye ma aragtay wax walba inuu ilaahay u kaliyeelo wad garanaysaan qisadii nabi Yunus calayhi salaam markii namariga calooshiisa uu ku dhacay waxa weeyaan nabiyullah Yunus namariga calooshiisa markuu ku dhacay oo saddex mugdi gadaashood uu galay waxa dhacday in nabiyullah Yunus calayhi salaam hadalkii koowaad oo ka soo baxa wuxuu ahaa laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ayuu yiri laa ilaaha illa xaq lagu caabudaa ma jiro illa anta adiga mooyaan ilaahay adiga baa jira cid xaq lagu caabudo adiga baa jira inni anigu kuntu min adh-dhalimin laa ilaaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ayuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa uu ka badbaadiyay asagoo xaaladda khatarta galay buu muxuu ku badbaaday ilaahay xaqiisu uu cararay ilaahay kaligii buu waxiday ilaahay xaqiisu nazahay wuxuu yiri ilaah ma jiro adiga mooyaan ilaahayo nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuuna amray ruuxa muuminka markay musiibo iyo balaayo iyo ibtilo markay ku habsato ruuxa muuminka waxa badbaadin kara buu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam adkaartan ha akhristo buu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam adkaarta waxa kamida la ilaha illa allah al-azim al-halim la ilaha illa allah rabbul arsh al-azim la ilaha illa allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-azim nabigu calayhi salaatu wassalaam wuxuu yiri qofkii ducada iyo dhikriga akhriya markii dhibaato ay qabsato ruuxa ilaahi dhibaatada waa ka fayda ayuu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam dhibaatada waa laga fayda marka hadii ruuxa muuminka ay dhibaato qabsato dhibaato aduun way fara badan tahay fitanteeda iyo balaayadeedu way fara badan tahay waxa la doonayaa xagga ilaahi inuu u cararo ayaa la doonayaa ilaahi subxaanahu wa ta'ala uu kaliyeelo ayaa la doonayaa qodobka labaad waxa weeyaan ruuxa muuminka kula tacaalayo hadii ay qabsato dhibaato iyo balaayo haday qabsato xaaladda labaad kula tacaalayo waxa weeyaan xusnu dhanni billah inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka fisho mala wanaagsan inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka fisho ayaa la doonayaa ilaahay wuxuu yiri malaha wanaagsan asagoo ka sheekaynaya malaha wanaagsan asagoo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala mala wanaagsan laga fisho asagoo ilaahay ka waramaya wuxuu yiri alaysa allahu bikafin 'abda ilaahay ma wuusan ku filnayn adoonkiis qara kale quraanka ku soo aroortay waxay leedahay alaysa allahu bikafin 'ibada ilaahay ma wuusan ku filnayn adoomihiis ilaahay waa ku filan yahay dhibta ku haysata hadii waxa way awlaadu ay maaragta ay kuwa caasiyiina ay noqdeen arsaaqadu ay kugu adkaatay noloshu ay ciriiri kugu tahay fahmada waxbarashadu ay kugu adkaato wax allaale iyo wax kasta oo aad dareemayso oo dhibaato ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa kaaga filan yahay inuu ka dul qaadana waa awooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala
marka ruuxa muuminka waxa la doonayaa ilaahay baa kugu filan inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala isku dhiibtid oo aad isku bihiso oo gacmahaaga u hoorsato ayaa la doonayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kala leeyahay isagoo in badan ka sheekaynaya dad badan oo gaalo ah waxaa jira dadka mushrikiinta markay badda saaran yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala markii mawjaadka iyo duufaanuhu ay ku kacaan oo ay dareemaan khatar markay dareemaan waxaa dhici jirtay ilaahay xaggiisa u carari jireen ilaahay keligii bay bari jireen ilaahay keligii bay isku dhiibi jireen markii ay badbaadaanna ilaahay bay dib kaga sii caasin jireen oo waxa weeyaan halkii bay cisyaanka iyo dembiga ka sii miisi jireen ilaahay wuxuu leeyahay isagoo ka warramaya dadka gaalada ee mushrikiinta ah faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila albarri idaa hum yushrikuun ilaahay wuxuu leeyahay dadka mushrikiinta ee gaalada ah markii doomahooda ay badda koraan oo ay badda fuulaan oo mawjaduhu ay ku kacaan oo ay baqaan oo naftooda u baqaan waxay u carari jireen dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin ilaahay keligii bay bari jireen ilaahay bay isku dhiibi jireen falamaa najaahum markii ilaahay uu ka aqbala ducadooda oo ilaahay uu badbaadiyo waxa weeye falamaa najaahum ila albar markii ay bariga iyo dhulka tagaan idaa hum yushrikuun waaba kuwa shirki yeelaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa cid kale la wadaajinaya xaaladda saddexaad oo ruuxa muuminka kula tacaalaya waxa weeyaan laga doonayo ruuxa muuminka inuu la yimaado waa alcibaada markii ay dhibaato iyo arrinku qabsato waxaa la doonayaa inaad la timaado cibaadada aad badiso ood xagga ilaahay u cararato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fafiruu ila allah u carara xagga ilaahay u carara dhibaato yar haddaad dareento adnaa shay haddaad dareento xagga ilaahay haddaad ula cararto oo aad tiraahdo ilaahayow arrintaa adiga unbaa iga dulqaadi kara adigoonan cidda kuugu dhow adoonan u sheegin haddaad ilaahay u sheegato ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimahaaga waa uu kaa faydayaa waxa dhib ee aad dareemaysana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu kaa qaadaya cibaadadu marka nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo ka warramaya wuxuu yidhi alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in la cibaadaysto xilliga fitanta iyo balaayada iyo imtixaanaadka iyo masaa'ibtu ay jirto inuu ruuxu cibaadadiisa uu badiyo ka hijratin ilaya waxay la mid tahay hijro aniga la iisoo hijrooynayo ajarkeeda oo kaleeta ayuu ruuxu helaya sababtuna waxa weeyaan nabigu calayhi salaatu wasalaam asagoo cibaadada ka warramaya wuxuu yidhi alcibaadatu fi lharji ka hijratin ilaya ruuxa muuminka inuu cibaadaysto xilliga balaayada iyo dhibaatada iyo fitanta iyo imtixaanaadku ay badan yihiin oo dadka la ibtilaynayo inuu ruuxu cibaado badan la yimaada ka hijratin ilaya waxay la mid tahay hijro aniga uu isoo hijrooday ayay la mid tahay marka ruuxa muuminka waxaa la doonayaa wax allaale iyo wax kasta oo aad rabto oo noloshaada ku saabsan inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad la wadaagto ayaa la doonaya intaadan qofka kuugu dhow walaalka walaasha cidda kuugu dhow waalidka adoonan u sheegin kala hadal saaxiibka ama cidda kuugu dhow adoonan waxba u sheegin waxaa la rabaa arrintii kugu soo kororta inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegato ilaahayow adiga unbaa ii xallin kara ilaahayow adiga unbaa ii caafimaadka ii siin kara ilaahayow adiga unbaa ilmaha ii hagaajin kara yacni inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad isku dhiibto ood wax u sheegato ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu kaa dulqaadaya waxa aad u baahan tahayna ilaahay waa uu ku siinayaa qodobka afaraad ee ruuxa muuminkaa laga doonaya inuu kula tacaalo markii ay soo waajahdo musiibo iyo balaayo iyo dhibaato uu noloshiisa ku dareemo waxaa la doonayaa alamal inuu yididiillo wanaagsan la yimaado ayaa la doonayaa in ruuxa muuminka yididiillo fiican oo wanaagsan oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wax wanaagsan uu ka fisho ayaa la doonayaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidu lqudsi wuxuu ku yidhi ilaahay asagoo ka sheekaynaya ana cinda danni cabdii bi
فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله أي النبي عليه الصلاة والسلام أصو حديث قدسي كورني إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحو ليهي أنا عند ظن عبدي بي anigu waxaan ahay adoonkayga malihiisa meeshuu ii joogo ayaa aniguna u ahaanaya fa in dhanna bi khayran falah hadduu adoonkayga malo wanaagsan iga fishana falah waan siinaya wa in dhanna bi sharran falah haddii wax xun iyo shar iyo balaayo iyo dhibaato hadduu aniga iga fishana falah waa la siinaya حديثنا هو حديث متفق عليه متنق انتي صدنبنا في صحيح مسلم أيا لغوري وحديث صحيح الصغر وقدسي ويان إلهي سبحانه وتعالى والنبي كورني عليه الصلاة والسلام marka waxa la doonayaa ruuxa muuminka ah malo wanaagsan inuu ilaahay mar walba ilaahay ka fisho ayaa la doonayaa malo wanaagsan inuu ilaahay ka fisho maxaa dhacaya ruuxa muuminka ah hadii uu malo xun ilaahay ka fisho malo xun aad baan uga digayaa inuu ruuxa muuminka ah malo xun ilaahay uu ka fisho waxay ka mid tahay waa arin xaaraan ah oo min kabaa'ir dhunuub bay ka mid inaad ilaahay malo xun ka fisho ka filato ood ka rajayso waa min kabaa'ir dhunuub ومن كبائر الذنوب ذنوب تكوى أقوى وين بكمت أن وحوى يمارك تروح دوسا كتوبت كيرين أنا اللي قدم بالآفين بكمت هاي وأنا أرن حاران روح مؤمن كا إنه إلهي ملك كفي الشر صوابتنا وحوى يوم وحي سوهز جليسا اليأس من رحمة الله في سوهز جليسا إنه الروح كقوسته نحريست إلهينا وحويان كما قوستان وحويان إلا المشركين دتك قالوا أمويانه عد كليت النحريس إلهي كما قوسته لا تقنطوا من رحمة الله إلهي إن بدن القرآن كيسا كمذا أيو دتك أوجدي أو كنهيي أو دتك كيسا كريبي إن يسن كقوسا نحريس تيسا يما حان كل هاي الرحمة دي سين كقوسا أي إلهي سبحانه وتعالى كأمري وحن كسوقنا أنا يا كلمة والدين تأتي أمت كبا هل حديث نبي عليه الصلاة والسلام لجوري نبي ولوير عليه الصلاة والسلام ما دام الزمن كان زمن فتنة كترنه نبي عليه الصلاة والسلام وحيري القرآن سبب قرآن كوا سبب بدبادة هذا أدون هي بدبادة هذا آخرة أي كترته طرفه بيد الله قرآن كعرف كيسة إلهي حقي سوء هذي وطرفه بيدك عرف كيسة كلنا قعنت هذا كترة مركز النبي بوحير عليه الصلاة والسلام فتمسكوا كل جاء أو قبصة القرآن كان لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا وليجين قرآن كهداد قعنت قبصتان وكلك تان وحريرك أدونك يا إلهي ودحيا وقرآنك حداد حريرك يا حرقة قعنت قبصتان لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا والنبي عليه الصلاة والسلام هلاك سمي ميسان أو رمي ميسان أو ودد صحراء كلي حن ميسان وليجين كلي حن ميسان مركب بدبادة أدون هي بدبادة آخرة وحي كجرت القرآن كائنا كلجنو أو أنجو أم برنو أو أبت كأن برنو أو وحوي هدي القرآن كأتقان أديو دتك أصيبرت أيال الدنيا إن أديو دتك صيبرت أيال الدنيا نبي بوحير عليه الصلاة والسلام روح حافظ القرآن والد كيس مالك قيامة وحي إيمانا يندتك مالك قيامة أو إذل وحال صوح حشرين دونا حفاة عراة أيال صوح حشرين دونا دتك أيقو قاقاون أو كبلا أيا مالك قيامة أو دن أيال السكوكينية لكن دتك أصلا وحا لغا أستريا روح حافظ القرآن كوالدين تيسوى الله أستريا مالك قيامة وحي إيمانا ينبو النبي عليه الصلاة والسلام وحجري النبي عليه الصلاة والسلام ilmaha xaafidul quraanka ee quraanka ku amal fala waalidkii maalinka qiyaamada waxa lagu soo xashrin doonaa waalidkii isagoo qaba laba xullad laba isku joog oo qurux badan asagoo qaba taajna madaxiisu saaran yahay ayaa la keeni doonaa
dharka ugu quruxda badan oo ugu haybada badan oo taajka boqorada madaxa ay saartaan oo kale ay u saaran tahay ayaa la keeni doonaa maalinka qiyaamada waalidiintiisa waa waalidka ubadkiisa ku barbaariya quraanka xifdintiisa inuu ku dhaqmo inuu ku camal falo waalidka ilmihiisa arinta kula dadaala ilaahi subhanahu wa ta'ala waalidka wuxuu ku abaalmarinayaa maalinka qiyaamada waxa weeyaan maalinkaas ay dadku qaaqaawan yihiin oo faran la yihiin oo aysan waxba haysan ayaa ilaahi asturaya oo waxa weey qorraxda halka la isku soo istaajinaya ayaga waxa la harsiinaya harka ilaahi baa la hoos geynaya waxa u shafeeca qaadaya dadkaas suuratul baqara quraanka u shafeeca qaadaya nabigu wuxuu yiri al-qur'aanu hujjatun laka aw alayk quraanku adiga ayuu xujo ku noqonaya ama adigu kugu dul noqonaya marka ruuxa quraanka intuu barta ku amal fala quraanka adiga ku dacwoonaya oo maalinka qiyaamada markay dadku waxa way nafsi ay anbiyadu leeyihiin adiga waxa ku shafeeca qaadaya quraanka ayaa ku horkacaya nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam ruuxa xaafidul quraanka quraanka ku amal falay ee tatbiiqiya noloshiisa laga helay quraanka waxa horkacayo iimaanaya quraanka oo ay horkacayaan labada suuradood oo az-zahrawaat la yiraahdo ama az-zahrawayn wa suuratul baqara wa suuratu ali imran markaasay u shafeeca qaadayaan markaasay waxay dhahayaan ilaahayow adoonkaaga hebel ama adoontaada hebel quraanka waa i bartay waa igu amal falay waa igu dhaqmay waligi ima jarin waligi ima goyn ilaahayow waxa way maaragtay maanta adiga ayaan erga kaaga ahay markaas ilaahi subhanahu wa ta'ala u dambi dhaafaya ruuxa jannada lagu gelinayo marka quraanka ku shafeeca qaadaya ruuxa quraanka barta ubadkiisa bara ku amal fala waxa weeyaan badbaadi u noqonaysa waxaan kelmadda ku soo gunaanadaya insha Allah ta'ala in ubadka aan ku dadaalno quraanka baristiisa waxaan soo arkay wadamo badan baan booqday dadka quraanka markay ubadkooda barayaan waalidku haduu quraanka yaqaan ama uusan ba aqoon yani haduusan aqoon waalidka waxa laga rabaa inuu barto wadadu ku baran lahaana uu raadiyo ayaa la doonaya haduusan aqoon xitaa waxa weeye quraanka intiisa hoose uu garanayo waxa la doonayaa inuu ilmihiisa ku kantaroolo oo ku taxakumo waxa laga yaabaa macalinka dugsiga marka loo soo diro in ardayga casharka si fiican looga dhageysto casharkii loo meeriyo loo mariyo waxa laga yaabaa macalinku inuusan casharka akhri arday walba uusan ku kantaroolin baa dhici karta ardayda badan baa dhici karta maraakisti baa badan baa dhici karta mashquulkii baa badan baa dhici kara qofkuna waa bini aadam waxa la rabaa marka waalidka kaalintiisa inuu qaato kaalinta waalidku wax kale ma ilmaha kan casharka loo soo dhigay inuu ka fiiriyo haday hooyo ahaan lahayd iyo hadii ay aaba ahaan lahayd in laga fiiriyo laga kantaroolo oo ilmihii la yiraahdo halka fadhiiso casharka kor u akhri ima qashi hadaa garanaysa iyo hadaadan garanay ilmaha hadii uu ku maqashiyo quraanka iyo casharkii uu soo dhigtay aad ka tiraahdo 5 jeer akhri 5 jeer markuu akhriyo hadana 5 jeer oo kale ku celiyo ima qashi codkana kor u qaad waxa ku filan ilmahaas 20 jeer haduu akhriyo casharka waa yaqaan kugu dhicmaysa ilmihii casharkii uu garan waayay waxa way ilmihii horay uma soconay kaliya waxa ku filan inaad halkaas soo fadhiisiso casharka akhri maando heblaay casharka akhri bas ilmaha intaas ku filan ima qashi aad ka tiraado bas kitaabka adoo u jeeda casharka soo laguma soo marin casharka adoo quraanka saa u kala jeeda akhri 20 jeer akhri 30 jeer akhri 40 jeer akhri markuu akhriyana hadiyad yar nacnac chocolate wax yar uu ku farxayo si haduu akhriyo adoo ku dhiirigelinaya oo waxa uu ku farxad gelinaya ayaa la doonaya ilmihii waxa dhacaysa in waxa weeyaan si degdeg ah heerkii iyo hankii laga rabay iyo waxa weeyaan inuu quraanka iyo waxbarashadii iyo diinta barashadeedii inuu jeclaado ayaa dhici karta aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim kelmada insha Allah ta'ala intaas ku soo gunaanaday assalamu alaykum